رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa inoo sii socdaa duruusteennii aan ugu talagalnay ramadaanka oo aan caawan kaga hadli doono salaada iyo wixii la xiriira. salaadu waxa weeye xiriirka u dhexeeya qofka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka qofka xiriirkiisa inuu wanaajiyo ilaahay rabo waa inuu salaada u daa'imaa oo wanaajiya. haddana ilaahay qur-aankiisa meelo badan wuxuu ku yidhi wa aqiimu الsalaata wa aatu الzakaa. had iyo jeer salaadii waa la sheegaya, aqiimuu banu qur-aanku oranaya. waxaana laga wadaa macnaha salaadii la imaada waxyaalihii la socday oo dhan. sidoo kale nebigu alayh الsalaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati alsalaa. waxa ugu horeeya qofka lagu xisaabinaya yowma alqiyaamaha maxaa weeye alsalaa. fain salaxat saluxa saa'iru camalihi wain fasada saa'iru camalihi. hadduu salaadii u fiicnaatana camalkiisi kaleo dhan waa fiicnaadaa, hadday salaadii ka xumaatana camalkiisii kaleo dhan waa xumaadaa. marka say salaadeenu ay u noqoto mid wanaagsan oo waxaynu raacaynaa nabigeena calayhi salaatu wassalaam. nebigu wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli. u tukada saad ii arkaysaan inaan u tukanayo oo kale. bimacnaa sida aynu kutubaha ku hayno oo xadiisa nebiga sugayso oo culimmadii ay noo soo diyaariyeen waa inaynu u tukanaa. haddii kale waxay noqonaynaa salaad aan la aqbalayn. nebiga maalmaha ka mida nin masaajidka isagoo fadhiyo u yimi, intuu tukaday ayuu u yimi, assalaamu calaykum buu yihi. nebigu waa u jawaabay, irjic fasalli fa inaka lam tusalli buu yihi. 3 mar markuu celceliyey markii dambe wuxuu yihi inii laa uxsinu akthara min dalika, anta ka badan ma aan aqaano buu yihi, ee facalimnii i bar. markaasuu nebigu baray arkaantii iyo waxyaalihii daruuriga ahaa oo salaada aan laga tegi karin. kuwii marka culimadu ay soo koobeen baynu inaguna si usoo koobeen aynu isla socodsiineynaa. midda ugu horeysa waxa way shuruudda salaada maxaa ka mid ah? shardi maxaa waaye horta sidiisaba? shardi macnihiisa waxa weeye wax ka horeeya wixii la sameynayo horta banaanku ka yahay. salaada dhexdeeda lagu sameyn maaye waa waxdii ka horeeya way salaadii. kadibna haddii laga tago isaga salaadii ma jirto. haddii laga tago shuruuddii mid kamid ah salaadii ma jirto. shuruudda salaadu marka waxa la yihahdaa waa 9 shardi. waa inaad la timaadaa si salaadaadu ay u noqoto mid la aqbalo. waa inaad qof horta muslim tahay, waa inaad caqli leedahay, waa inaad qof wax kala garanaya tahay. hataa haddaa yar tahay 8 jir 9 jir 10 jir qof wax kala sooci kara waa inaad tahay. waa inaad isnadiifisaa oo daahir ka tahay xadathul akbar iyo xadathul asqar. weeso wax u baahan baa xadathul asqar la yihahdaa. quslina waxa la yihahdaa wixii u baahan muxuu ahaa xadathul akbar. marka waa inaad xadathul asqar iyo xadathul akbar labadaba aad ka tahay daahir. sidoo kale waa in salaadii waktigeedii uu galay. salaada waktigeedii joogin lama tukado. waxaa kaloo ka mid ah inaad cawradaada asturtid. cawradaada marka waa xaggee? dumarka cawradooda waa kulu jasadihim ila alwajha walkafayn. raggana waxa waaye maa bayna asurati warukba. surada waa xudunta ilaa ruugaga. marka xuduntuna waa ku jirtaa, ruugagiina waa ku jiraan. intaa markaan ka soo baxno oo cawradii la asturo, waa in laga fogaadaa najaaso oo dhan. wax kasta oo dharkaagiia iyo meesha ku tukanaysay iyo sajaayadaadii iyo wixii oo dhan waa inay wada daahir inaygu. adoo awalba weyse qabay. tan 8aad waxa weye inaad xagga qiblada u jeensatid. adoon qiblo u jeedsan hadda meel kale haddaa utukatid laga aqbali maayo. midda ugu dambeysana waa niyaddana booskeedu waa xaggee? waa qalbiga. niyad afka laga oranayo maaha niyadda waa qalbi. anniyatu maxaluha alqalb waatalafudu biha bidca. in lagu dhawaaqana waa shay bidca ah. 8daas markaad la timaadi shardi adoo weese qabaad marka salaadii u kacday. salaadii marka u kacday waxaa lagaa rabaa 14 rukni inaad la timaadid. 14 rukni. bacd alculamaana waxay yihahdaan 17 rukni.
afar iyo tobankaa rukni waxaa ugu horeeya xirashada. maya horta waa inaad istaagtaa salaada, haddii aa kari kartid waa inaad istaagtaa oo intaadan ba allahu akbar dhihin horta waa inaad taagan tahay. waa haddii aa kartid, haddaad jiran tahay kuma jirto, haddii aad mathalan wax saaran tahay faras ama maaragtay diyaarad iyo kuma jirto, mathalan sunadii salaadu ay tahay oo kale. istaagidaas marka waa rukni. tan labaad allahu akbar inaad tiraahdid oo salaada ku gashid, iyaduna waa rukni. rukni maxaa la dhahaa? waa tiir. rukni haddaad ka tagtid salaadii kaa ansixi mayso ilaa ruknigii la timaadid. marka afar iyo tobanka rukni haddii mid lagaa waayo salaadaadii waxba kama jiraan. tan saddexaad waa maxay? waa inaad faatixada si saxa u akrisa, maaha si khaldan. marka waa inaad barataa faatixada. tan afraad waxa weeye rukuuc, inaad rukuucdid allahu akbar tirahdid oo rukuucdid. tan shanaad waxa waaye inaad rukuucdii kasoo kacdid. tan lixaad waxa weeye inaad istaagtid. istaagid waa inaad istaagtaa oo adoo qofku yidhahda qofkan waa taagan yahay. tan kale waxa weeye waa inaad sujuuddaa. markaad sujuudaysid 7 shay baa laga sujuudaa, waxaana ugu weyn wejiga iyo sanka iyo labada calaacalood, labada ruug iyo labada lugood farahooda. intaas 7daas waa inaad ka sujuuddaa. wejiga iyo nebigu wuxuu ishaareeyey wejiga iyo sanka. tan waxa weeye sagaalaad waa ataxiyaadka ama tashahud ba af carabiga lagu yihahdaa. inagu ataxiyaad baynu rahnaa. 3 nooc buu usoo aroorayay ataxiyaadku. mid kastood ku tukatidba waa sax, laakiin waa inaad barataa. waxaa laga yihahdaa waxaa ugu xoog badan tashahudka ibnu mascuud uu warinayo radia allahu canhu. sujuudi markaa kasoo kacdid maxaa lagaa rabaa oo rukni iyaduna inaad fariisatid. fadhiga labada sujuudood dhexdooda waa inaad fariisataa. haddaad iska noqotid intaad sujuudid waxa waaye rukni baad ka tagtay, salaadaadii waa batil. sidoo kale waxaa lagaa rabaa oo kamida arkaanta nebiga inaad ku salidid. nebiga markaa ku salinaysa waa goorma? ataxiyaadka hore maaha, ataxiyaadka ugu dambeeya salaada inaad nebiga ku salidid calayhi salaatu wassalaam. waxaana ugu yar allahuma salli calaa muxamadin wasalim baa ugu yar. waxaa iyaduna rukni ah inaad salaamo naqsatid. laba dhinac baa loo salaamo noqsanaya, midigta iyo bidixda. waxay yidhahdeen culimadu waxa rukni ah midigta bes, tan kale waa sunna. waxaana la oranaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi. waxaa iyaduna rukni ah oo muhima ku negaansho, aad ku negaatid ficilada, arkaanta ficilada ah. see oo kale mathalan rukuucda, waa rukuucday, saasaad u rukuucday, waa inaad negaataa. qadri subxaan allahi la yihahdo waa inaad ku negaataa. samica allahu liman xamidahu markaad tiraahdo waa inaad negaataa. ictidaalka waa inaad ku negaataa. markaad sujuudid waa inaad negaataa, ku negaataa sujuudda. negaansho maxaan ka wadaa? waxaan ka wadaa qadri in laga yidhaahdo subxaan allah, waa inaad sujuudsanaataa. fadhiga markaad fariisatid labada sujuudood dhexdooda ha iska noqonin, fariiso. qadri subxaan allah waa inaad fadhidaa. afcaashaas oo dhan negaanshay leeyihiin. dadku badanaan arrimahaas way khaldaan. waxaa ugu dambeeya oo rukniga afaraad yahay, 14 yahay, in saas laisugu xijiyo aan u sheegnay, oo aadan sujuuddii ka bilaabine haddana faatixadii akrine aada istaagidii markaas haddana takbiiratulixraam ilaa sidaas. arkaantaas marka lagama tegi karo inu yidhah camdan haddii looga tagana salaaddu waa buraysaa, waa arki doonaa. waajibaad baa jira. waajibaadku maxay yihiin? waajib waxaa la yihahdaa wax haddii looga tago ilowsho lagu kabayo sujuudu sahwi. qasdan haddii looga tagana salaaddu waa buraysaa. ilaa culimadu dhowr bay sheegaan, laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa oo ugu xoog badan tashahudka dhexe ama ataxiyaadka dhexe. salaadu hadday tahay rubaaci ama maqribka hadday thulathi tahay, atashahudkaas hore waa waajib. laakiin qasdan haddaad uga tagto o tiraahdid rukni maaha, salaadaadu waa buraysaa. waxaa muhima tashahudkaas maadaama aan ka hadlayno, imaam haddaad leedahay oo imaamkaagu ka kaco tashahudkaas oo istaago, subxaan allahi ma oranaysid, ma xasuusinaysid. dumarkuna tasfiiq ma samaynayaan ee waa raacaysaa imaamka. haddii inta qof yidhaahdo subxaan allah, imaamkii oo taagan uu soo noqdo oo fariisto, salaadiisii waa buraysaa. salaadiisii
waa buraysaa. sunooyin bay leedahay salaadu, sunooyin ayay leedahay. sunooyinkaas kuma burayso salaadu, laakin fadli ziyaada bay leedahay. sunan baa la yidhaahdaa. sunooyinka maxaa kamid a? ducaa istiftaax baa kamid a, waxaa kamid a acuudu billahi min ashaytaan arajiim baa kamid a, aamiin baa kamid a. waxyaalo badan oo sunata saas in lagu duceysto intaan salaada horteeda aadan ka bixin baa kamid a. nabiga inaad ku salidid tashahudka hore sunantay kamid tahay. arrimahaas oo dhan waxba kuu dhibi maayaan, laakiin fadli ziyaada bay kuu leeyihiin. sujuudu sahwi baan sheegnay, maxaa laga wadaa? sujuud sahwi waxaa laga wadaa markii aad waajib ka tagtay, haddii aad xasuusatid inaad waajibkaa ka tagtay, hadhow salaada markay dhammaato intaadan salaamta ka bixin baad laba sujuudood sujuudeysaa. labadaas sujuudood waxaad ku akrinaysaa wixii aad ku akrin jirtay subxaana rabiya alaclaa wabixamdi, ama subxaana rabiya alaclaa, hadba sidii aad rabtid. marka subxaana rabiya alcadiim oo lagu akrinayo wabixamdi, ama subxaana rabiya alcadiim oo rukuucda lagu akrinayay, iyo subxaana rabiya alaclaa iyo subxaana rabiya alaclaa wabixamdi oo lagu akrinayo sujuudda, waxaa waajibaadka culimada qaarkood ku daraan, qaarna sunanta ayay ku daraan. marka sujuudu sahwiga waana la sujuudi karaa salaada intayan dhammaanin salaanta horteeda, waana la sujuudi karaa salaanta gadaasheeda. salaanta kabacdina waa la sujuudi karaa, laakin tashahud dambe ma jiro. qofka jiran see u tukanaya? qofka jiran wuxuu u tukanayaa sida u sahlan. istaag hadduu ku tukan karo istaag, fadhi hadduusan fadhiga karin waa jiifsanaya, hadduusan jiifka karin far keliya dhaqaajin karo faruu dhaqaajinaya, hadduusan fartana dhaqaajin karin indhaha imaa madaxu ka ishaaraya, hadduusan madaxana ka ishaari karin indhaha. xaalad kasta salaadii inaan looga tegi karin bay kutusaysaa. innaga soomaalida waxaa nagu batay hebel waa tukadaa, hebel ma tukado, shay iska caadiya maaha. salaada sina loogama tegi karo, xataa jihaad fi sabiil illahi haddaad ku jirtid oo xabadii ridaysid waa tukanaysaa. qofka safarka see u tukanaya? diinteenu waa diin fudud. qofka safarka waxaa loo ogol yahay laba arrin: in uu salaadaha midba gaarkeeda u tukado, laakiin lasoo gaabiyo hadday afar yihiin. duhurkii labuu ka tukan, casarkii labuu ka tukan, cishii labuu ka tukan, maqribka iyo subaxdu male gaabis, oo mid walba waktigeedii ku tukado ayuu heli karaa. wuxuu kaloo heli karaa inuu duhurka iyo casriga uu tukado waktiga duhurka, ama duhurka iyo casarka tukado waktiga casarka. laakiin midna wuu niyeysanaya inuu soo hormariyay, midna wuxuu niyeysanaya inuu dib u dhigay. sidoo kale muxuu ahaa maqribka iyo cishahana waa sidoo kale. waktiga maqribku wuxuu tukan karaa maqribkii, haddana cishii buu tukanaya. cishii buu dib uga dhiganaya maqribkii, laakiin waktiga maqribka la joogo waa inuu dib u dhigtaa maqribkii niyadiisa, oo markuu meel tago markaa cishihii tukadaa, muxuu ahaa maqribkii horta tukadaa. hal aadaan bay leeyihiin labadaas salaadood, laakiin laba iqaamo, laba mar baa la aqiimaya. salaada jimcaha waa laba ragco, waana farad, duhurna ma aha. salaatuljumcuhu ma aha duhur, salaatuljumca la dhahaa. waa khudbaana ka horeysa, laakiin khudbadaas labadaa ragco keliya weeye. waxaa muhima tan inaan isxasuusino, qofkii 3 jumca ka taga in waciid badan nabiga kasoo arooraya alayhi salaatu wassalaam. waana ragga waxa laga rabo. sidoo kale ragga waxaa laga rabaa inay ku tukadaan masaajida, oo salaatuljamaaca iyaga farad bay ku tahay. dumarka laakiin waxay u tahay labaduba sunnay u tahay. salaada jumcaha masalan arrin muhima jirto oo aan dadku khaldaan. salaad jumcaad masalan masaajid timi, hal ragca ku dhaaftay, waad ku xiranaysaa. markuu dhameeyo salaada hal ragca la imanaysaa. haddaad se ugu timaadid atashahudka ugu dambeeya ama ataxiyaadka isagoo u fadhiya oo markaasaa kula xiratid, waxaad niyeysanaysaa jumca, laakiin maxaad tukanaysaa? duhur baad tukanaysaa, 4 ragcaad tukanaysaa. qaladaadka dadku ay sameeyaan way badan yihiin, laakiin waxaan ka hormarinaynaa waxyaalaha burinaya salaada. salaada ilaa hadday kaa burto salaada tukatay male. ko wax kastoo weesada buriya salaadiina waa burinayaan. ko qosolka ama ilka caddaynta, qofku uu qoslo qahqahada la yidhaahdaa, salaada waa burisaa. dhaqdhaqaaq fara badan iyo shaqo haddaa qabatid
haddaa kirli soo qaadatid oo biyo ka cabtid oo ama nalkan halka ka qaadid oo xagga dhigtid oo hadda shaqa qabatay salaad kuma jirtid. dhaqdhaqaaqaas waxaa shardi ah inuusan maslaxad salaada ahayn iyo inaadan ku badbaadinayn qof ama indhala ama ilmo yara. qof indhala ama ilmo yar baa webi ku dhacaya, waad adoo salaadii ku jiraad qabanaysa. xataa waxaa la culimadu yidhahdaan mas oo kale khatara waa dili karaysaa, salaadaadina waa ku jirta. sidoo kale haddaad hadashid oo sheekaysid adoo salaadii ku jira, waxaan nahay waxaan rabnaa halkaasay ka baxday, ama qof baa kula hadlo tiri salaamu calaykum, calaykum asalaam waraxmatullah, war xaggee jirtay, salaadaadii waxba kama jiraan. sidoo kale salaada waxaad uga baxaysaa adigoo goosta inaad salaada ka baxdid, qalbigaa kaa soo gashay salaaddii waa ka baxday, waa goosatay, banaankaad ka joogtaa. waxay kaloo salaada ku burtaa inaad cuno cuntid, raashin cuntid iyo wax saas oo kale ah, iyo inaad rukni aad ka tagtid sidaan hore usoo sheegnay, iyadana waa saas. waxaa jira salaad la yiraahdo wax la yihahdo jabiira, qofka nabar hadduu lug ka gaaro ama gacan ka gaaro ama ka jabo la daboolayo, waa iyadoo masaxaya, waa masaxaya. sidoo kale waxaa jirta almasxu cala alkhufeyn wax la yihahdo, adoo gurigaaga iska jooga hadday lugahaagu sigisyo kuugu jiraan, markaad inta kale soo dhaqdid waad masixi karaysaa, gacmaha qoyan baad ku masaxaysaa meesha aad dhiqi lahayd. laakiin 24 saac gudahood ayaa lagu ogol yahay. qofkaas laakiin musaafirka ah 3 maalmood baa loo ogol yahay. goormo waqtigaasu ka bilaabanaya? waqtiga koowaad ood masaxdid, waqtiga koowaad oo masaxdid baa 24 saac kuu bilaabanaya, ama 3 maaragtay maalmood. tayamum muxuu yahay? tayamum waxaa la yidhahdaa markaad biyo weydid inaad ma garanaysaa si kasta oo salaad oo kaaga tegi karto male. haddii qol lagugu xiro weeso weydid oo dharkaagu najaasooba, kulli salaad baa lagaa rabaa. tayamumka muxuu yahay marka? caradii baa 2 darbo ku dhufanaysaa, darbana waxaa ku dhufanaysaa gacanta dhulka, markaasaad wejiga marinaysaa. darbana culimada qaarkeed waxay leeyihin 2 kaf baad marinaysaa, qolana waxay leeyihin ilaa gacanta ayaad marinaysaa, bes waa weese qabtaa. wixii weese kuugu banaanaanayay salaaduna muxuu ahaa tayamumkuna waa ku banaynaya. waxaa jira salaad iyaduna farad oo janaaze la yiraahdo, 4 waxay leedahay takbiir, iyadana waa taqaaniin. salaadaha sunooyinka iyaguna jira. salaadaha sunooyinka fadligooda waa maxay? fadligooda waxa weeye haddii aakhiro lagu xisaabiyo oo faradkii agay wax ka dhinmaan, waxaa lagugu kabayaa sunantii aad la timi. marka ha lagu dadaalo sunooyinka in la soxo, adoo saxaya salaadii haddana isku day sunooyinkii inaad kabtid. maxaa nabigu alayh salatu slam xadiis wuxuu ku leeyahay laysa lilmar'i min salaatihi ila ma caqil, qofka kuma laha salaadiisa ilaa wixii uu xasuusta maahane. halkaas bay ka imanaysaa khushuucda. qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fi salaatihim khaashicuun, waa qalbigaagii baa jooga oo ilaahay baa u dulaysan tahay oo aad xasuusanaysaa ood la hadlaysaa subxaanahu watacaala. salaadaha sunooyinka marka waa kor maraynaa. 2 ciidood salaad sunooyin la tukadaa jira, kusuufka iyo khusuufka, qoraxdu markay madayaxu madoobaado, istisqaa markii roobku dadka ka daaho salaad la tukadaa jirta, istikaarada markii amar aad la yaabtid meel aad u qaadid duca la akriyaa jirta, iyo 2 ragcoo la tukado. waxaa jira ragcooyin rawaatib la yiraahdo oo la tukado salaada subax horteeda, duhurka 4 ka horeeya, 2 ka dambeeya, maqribka 2 ka dambeeya, cisho 2 ka dambeeya, rawaatib baa la yidhaahdaa. fadli badan bay leeyihiin. witriga oo 1 ragca ah ama 3 ragca ama 5 ragca, witri waa tiro isdheer, habeenkii salaadaada inaad ugu dambaysiisid, iyadana waxay ka mid tahay sunanka. salaatu duxa 2 ragca ugu yar, qoraxdu markay kululaato barqadii, iyadana iyo salaatu leilka habeenkii la tukado. ayi salaad oo ka dambaysa salaada cishaha waa salaatu leil. maadaama aad saa u ogaatid salaada faa'iidadeeda, walaal ku dadaal inaadan salaada dayicin, adiga iyo intaa mas-uulka ka tahay. sinana yayin salaadu kaaga tegin, maxaa yeele lagu dhaafi maayo oo waa lagugu xisaabinayaa. ilaahi ha naga yeelo marka kuwii salaadooda ilaaliya oo daa'ima. intaas ayaan kusoo gabagabaynaya. wallahu subxaanahu watacaala aclam.